بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد سؤال ما يدي ويديه رجل ما وضعتم الله مثل رجل ارتس كبحايد كجرا على سكجرا هذا واي قرتي أنا كل يملي دتك تخصص كارتس كاله markay farsamo noqoto tumaal baan ida Axmed Ismaaciil baan macalinkoodii ahaa 1980 marka bal waxaan isku dayi doonaa wixii aan mawduuca ka gartay inaan wax ka tilmaamo markaynu nidhaahno alqiyaada qiyaadadu saaf Soomaaliga waa hoggaan علماء في عربي واحد هذا القود والسوق بين هذا حولا كحاجة هركا كحيانا وقايد كحاجة ضمك كحيانا وسوق ودريرنتي أما كحينتي القيادة أصلا معناها اللغوي جاي لها ضحيون بيتي مركا ربحان الله يبغى وهو جامي أما هو سيد أما قد وضع النمو وقف هركعية ضد كلام مصطلح هانا أما ترمينولوجي هانا كما قد سنتها قيادة داسي هكو صاب سنة وقفكو قدرات شخصية أبور كيسال هو أبورين وحكوه قامن كرايو أما التزام أدبية ضد كلا ضمبين له لكن قانونيا هين أما هالنقطة سلطة ممنوح ولا سيبة إنه بوس معمول شوغو أو ضد كوه قامن كرايو nolosha bini aadamkuna kama maaranto hogaamin waxay dhahdaan reer galbeedku hogaaminta si fiican buu u fahmay institutionska galbeedka jira bay dhahdeen hal mid ah ayaa bila hogaana halka midkeena waa ka burburay bay dhahdaan any institution galbeedka jira westernka hogaan buu leeyahay maamulka kala dambeey buu leeyahay cid hogaan buu leeyahay hal institution qulay diideen hogaamin waan u burburay waa qoyska galbeedka ninka iyo gabadhu waa simayeen saadaradeed mid ma hogaamiyo waa waxa burburay kaliya waxay dhahdaan waa meesha qura ee aanay ku adeegsanin aqoontoodii administration ama maamul ama hogaamineed ee nolosha bini'aadamku saadaradeed nolosha kama maaranto maadaama aanay nolosha ka maarmin waa sababta nebigu uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam saddex qof oo safar ku jira safarku waa wax waqti yar oo gaaban la galo waa wax danta la leeyahay hadaf ay meel la gaaro kooban saddex qof xataa hadaatiin baa la yidho safara ku jirtaan cidi haydin hogaamiso cidi maamul ha samayso taasi waxay tilmaamaysaa bay culimadu yidhaahdaan sida aan bini aadamku marnaba uga maarmin hogaamintu bay yidhaahdaan marka waa awoodda uu qof ku dhaqaajin karo dad hadafkooda uu ku gaadhsiin karo وأود قف بن آدمي القدرة على تحريك الناس أو الاتباع نحو الهدف وقفك إنه ضدك حيه وقولك يا متارجت يا هدفك إلا لها جارسين كرو تاسي ما وح لورد شابه مسوى وح لبرطه سيدي دبا behavioral بلدة كورنت psychology وقضيات مرن بدن لبا iska jirto school of thoughts ku kala gadisayeen oo ah binaadamku waxaan uu u dhashaa oo inuu yaro qorqoraawo bise waynu ku samayn karnaa oo wax la kasban karo la baran karo intaan markaa waxay ka mid tahay waxyaabaha isweydiiyaan qiyaadada miyaa loo dhashaa iyo hoggaanimada oo markaa inaga waajibkeenu wuxuu noqonayaa hoggaanka inaynu baadi doono mise waa la dhisaa oo waajibaadkeenu wuxuu noqonayaa dadka qaadaynu ka dhigi karnaa haddii aynu farsamadeeda iyo tababarkeeda u marro waynu tababari karnaa qaada dad wax hoggaamiyaynu ka dhigi karnaa labada ra'yiba dad baa ku tegey laakiin iminka waxay qaataan inta badan ay ku dhaqmaan waxay ku tilmaamaan bell distribution bell distribution waa jaraski maxaa la yidhaahdaa baalkan soo jarisku saa uma samaysna waxay leeyihiin
1 to 2 hal ilaa 2 qof boqolkiiba way u dhashaan hal ilaa 2 qof boqolkiiba qaadanimada waa sifa ilaahay uu siiyey oo ay ku dhashaan baalkii iska aamus waa sifa alla siiyey bay leeyihiin oo ku dhasho marka waa by nature tusaalayaashay bixiyaan waxaa ka mid a matalan cumar oo kale bay idhaahdaan waa dadka ilaahay u siiyey maxay by nature inuu qaa'id noqdo waxay idhaahdaan taa cagsigeeda hal ilaa 2 qof boqolkiiba iyaguna wax ma maamuli karaan waa dad natural sida alla u abuuray aan lahayn tamartaa inay wax maamulaan culamada bar baa tusaale u qaata saxaabigii la odhan jiray abidar iyo cida lamida oo nebigu wuxuu ku yidhi laa ta'marana calaa itnayn weligaa 2 qof ha u talinin buu nebigu kula dardaarmay 2 qofna madaxa u noqonin xoolaha agoomeedna ha maamulin isagoo haddana saxaabadii ugu waaweyneed saxaabada oo min uu nebigu ku tilmaamayo asdaqu lahja inuu yahay ninka ugu warcad saxaaba inuu yahay nin geesiyo oo keligii intuu islaamay markuu islaamay nebigu yidhi iska tag yidhi maya quraysh oo dhan baa ka hortegaya intuu quraysh meesheeda fuulay tawxiidka ku dhawaaqayoo la tumay oo haddana maalinkii kusoo noqday oo waxaa samaynayay haddana nebigu wuxuu ku yidhi markay maamul noqoto 2 qofna ha maamulin marka waxay idhaahdaan 1 to 2% bini aadamka ka midi naturally baa ilaahay u abuuray inay qaa'id noqon karaan 1 to 2 bini aadamka ka mid percentna naturally baa abuurkoodu yahay bay idhahdaan inaanu qaa'id noqon karin inta soo hadha markaa waa maxay waa 96 up to 98% waxay leeyihin waa dad la tababari karo waa dad maxay la tababari karo haddii ay tababarkii saxa ah helaan marka haddii la tababaro way noqon karaan qaada ama dad wax maamulo bay noqon karaan qaa'idku ama cidda wax hogaamisa guri ha noqdo oo qof waloo inaga muybdaba inta badan guri waa hogaamiyaa 9 iyo dhowr caruura ama ha noqoto madaxweyne ummad hogaamiya iyo inta ka dhexle u dhaxaysa bini aadamka intaasiba maamul cid haysoo tiro badan baa jirta qaa'idku markaa waxay idhahdaan waa qof waxyaabo badan looga baahan yahay haddaan warka soo koobo odaygii maxwell la odhan jiray waa oday wadaad kristan oo weyn oo markii dambena qoladan leadership ka dhigtaa ayaa wuxuu idhaahdaa leader is one who knows the way goes the way and shows the way hoggaanku buu idhaahdaa waa ninka garanaya waddada marka hore waddada la marayo uu garanaya waa mar labaadna waa qof isagu practically u gelaya waddada inuu raaco waa mar saddexaadne waa qof dadka hagi karo isna waddada tusi kara haddaynu war kooban oo kala tilmaamno waxay idhahdaan qiyaadada marka laga warramayo 2 dhinac unbay inta badan uga warramaan mar waxay ka warramaan traits simaat ama sifaat qofka uu leeyahay marna waxay ka warramaan mumaarasaat practices waxyaabo la rabo qofku inuu sameeyo oo waxa hadduu sameeyo uu hogaamin saxa noqon karo waxyaabaha sifaadka shakhsiga ee qofka simada laga raba dadku dhaqanka ay leeyihiin ee ilaahay ku abuuray waa la qorqori karaa bay idhaahdaan maalan deeqsinimadu waa wax loo dhasho marka koowaad qofba by nature deeqsiya hantidu aanay wax weyn lahayna gacan furan laakiin dadka kalena waa la bari karaa bay leeyihin qofka waa la train garayn karaa ilaa ay gacantiisu ka barato maxay inuu wax bixiyo walidalik baa مثلا marka deeqda laga warramayo quraanka waxa aragteen in badan oo sakhinimo lagama warramayo wala yahud ala ta'am al-miskin baa laga warramayo ma dhiiri geliyo yani waa training ka qofka bini aadamka islaamka mesela marka wax bixin laga warramayo dadka inta badan waxa madaxooda ku soo dhaca dadka wax haysta ma wax bixintu waa dhaqan laga rabo qof kasta oo muslima waxa yar baa wax laga bixiyaa
caqligaa wax laga bixiyaa, aqoontaa wax laga bixiyaa, qofba waxba la siiyey, kartidaa wax laga bixiyaa, dadka waa la saaciday. yacni nebigu markuu sadaqada u tilmaamay wuxuu yihi qofka aad faraskiisa la saarto ama aad sama u sheegto ama aad caynkan u sheegto waxaasoo dhan waa sadaqa markuu tilmaamayay. It means wax bixintu maado qura maaha, wax weynna maaha inaad wax weyn bixiso. waxaa laga yaabaa jeebkaagaba 2 shilin inay ku jirto, 2 koob oo shaaha gooya, inaad koob shubtaa waa wax bixin, waad qof kale koob siisaa. idan wax bixintu bay leeyihin waa wax qofka bini aadamka la bari karo. dhaqamada qofka bini aadamka bay dhaaheen la bara markaa. qaarna qofku naturally markuu hore 60% sida u fiicnaa waxa ka dhiman waa 40%, around 20 kale waa loogu dari karaa. qaarna waxa laga yaabaa marka horeba inuu 40 joogay, marka mas'alada la eego warbaalkan ma meel baan taabanaya mise siis uu dabaya iska daayay la tahay codkaygu mala gaadhaya. waxay dhahdaan qaarna waxaa jira inuu 40 meelahayay laakiin 20-30 aynu ku dari karno. marka naturally sida alla inoo abuuray wax badan baynu ku kala gedisanay. deeq ha noqoto, aqoon ha noqoto, waxbarasho ha noqoto, dakaa ha noqoto, laakiin waxay leeyihin wax kastoo waxaa ka mid ah, wax kastoo waxaa ka mid ah hadduu qofku training helo waa la ziyaadin karaa, waa la kordhin karaa ilaa iyo laga dhigi karo qof waxaasi si fiican u garanaya. haddaba marka laga warramayo hogaamintu, leadershipnimadu, managementka way ka gedisantay bay dhahay, maamulka way ka gedisantay. maamulista caadiga bay dhahay Peter Drucker nin la yidhahda wuxuu leeyahay management is doing things right. managementku waa waxyaabaha inaad si fiican u qabato, wixii shaqada lagu diray inaad si fiican u qabato, doing things right. laakiin leadership buu leeyahay is doing the right things. kii hore wuxuu yihi doing things right, kanna wuxuu leeyahay waa maxay is doing the right thing. inaad waxa si fiican u qabato iyo inaad waxa fiican qabataa waa kala macno bay leeyihin. waxa si fiican inaad u qabataa waxa weeyaan qof innovation lama tihid, qof ru'ya lama tihid, qof horsocod kale. waxaan lagu dhiibay unbaad rabtaa inaad ceebe kaaga iman, aad sideeda u wado, waad manage garaysay, waad habaysay, tan unbaad ceebteeda iska ilaalinaysa. midna waxa weeyaan inaad isku daydo opportunitieska inaad ka faa'iidayso, maxaa fiican ee la qaban karaa, xaggee loo socon karaa, maxaa lagu ziyaadin karaa. shayga inaad halkiisa ku haysaa waxay dhahdaan waa kartida halka ugu liidataa. haddii shaqo lagu dhiibo bay dhahdeen weligaa waxaad ku dadaashaa halkii aad ugu timi meel ka hooseysa inaan lagugu imanin. haddaad waxba kordhin kari weyda bay dhahdeen halkaa ku hay iyo halkaa hoos uga noqonin. laakiin bay leeyihin qofka leaderka ahi maaha qof managerial ah oo waxaan inuu halkaa ku hayo ku tijaabinaya ama resourceka loo dhiibay iyo intaas uu si fiican inuu maamulo ku tala jira, ee waa qof raba inuu wax cusub kordhiyo ama wax soo horseed uu noqdo. haddaba haddii aynu nidhi waxyaabahaasoo dhamme waa wax qofka bini aadamka ahi uu la bari karo, uu samayn karo, uu wadi karo. nabiguna calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiya u yimo wuxuu ku yidhi adiga 2 khasladood oo ilaahay jeceliyey baad leeday, alxilmu walanaa buu ku yidhi. markaasuu wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow ma anaa kasbaday mise ilaahay baaba igu abuuray? nabigu wuxuu ku yidhi ilaahay baa kugu abuuray, yani by nature baad u dhalatay inaad qof degan oo kaadsiiyala tahay. laakiin waxay leeyihin culamadu dee nebigu wuxuu kaloo yidhi inama alcilmu bitacallum wa inama asabru bitasabur. cilmiguna waa wax ku yimaada tacliim, sabirkuna waa wax ku yimaada bitasabur, isa sabirsiin. haddaba leadershipku waa wax la baran karo oo qof wal oo dadka ka midaba la baran karo. laakiin waxbaristu waxay dhahdaan waxyaabaha qaarkoodna waa theoretical oo waxay u baahan yihiin in lectures un qofka loo akhriyo. taa macnaheedu waxa weeyaan macrifadiisa, aqoontiisa, informationka uu hayaa inuu biiro. waxyaabaha qaarna waxay yidhaahdaan waa wax training u baahan, tadriibaad u baahan in la tababaro.
idan leadershipnimadu casrigan dambe waxay ka mid tahay waxyaabaha trainingska lagu bixiyo. Coaches bay maanta dunidu leeyihiin, trainers bay leeyihiin, loo tababaro qofku sidii uu noqon lahaa. Ma aha tii jaamacadda theory ahayd ee uu qofku dee duruus soo qaadanaya, laakiin waa tababar rasmi ah. noloshana waxaa la ogaaday wax badan inuu tababar ka taro. culumu tarbiya oo dhan iminka inteeda badan waxay yidhaahdaan waa wax u baahan training. training la-aantu waxay la mid tahay qofka haddii iminka haddaynu gaadhiga marka la baranayo theory baa la isu dhigi jiray. meelaha xaggeena theory badan lama dhiga, Yurubka iyo meelaha theory baa la dhigaa, class baad fadhiisanaysaa, maanta o dhan waxbaa la akhrinayaa. waxaa la akhrinayaa waa wixii gaadhiga ugu shaqaynayay. kadibna imtixaan baad gelaysaa. imtixaanka theory-ga markaad baasto un kadib ayaa lagu bilaabayaa practicalka in lagu baro. ka waran qof haddaynu intaynu imtixaankaasina nidhaahno dee gaadhiga wakaasi saliidana qabo, kileejkana ka yara dhaqaaq, geerkiina 5 geer baa gale, sidaa u geli ka soco. yani isna wuu ku dhib mudanayaa, dadka wadada marayana wuu dhibayaa, mashaakilkiisu uu tiro badan. laakiin haddii la train gareeyo waa la gaadhsiin karaa inuu noqdo maxay good driver inuu noqdo. waxay dhahdaan maanta leadershipku ama aqoomaha ku saabsiisan culumu tarbiya oo dhan, aqoomaha ku saabsan bini aadamka in la koriyo, dhammaantood waxay u baahan yihiin bay dhahdaan. waxay dhahdaan aqoomaha ku saabsan bini aadamka naftiisu maanta dunida cusub waxay noqdeen wax tababara oo qofku u baahan yahay from A inta looga bilaabo oo la train gareeyo up to Z in la gaadhsiiyo. saa awgeed leadershipku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha maanta coachingka lagu qaato ee la tababaro. haddii la rabo cid in leader laga dhigo ama hogaamintiisu inay qurux badnaatana waxay ku fiican tahay inuu tababarada qaato. haddaynu guud ahaan eegno ninka la yidhaahdo gaal la yidhahdo John Adair waa ninkan United Nationka kuliyadoodan liidernimada ama tababarka bini aadamka ee Torino ku taala haysan jiray. waa nin jawaa'iz badan ay ku siiyeen baabkaasi trainingka. wuxuu leeyahay book la yidhaahdo Leadership of Muhammad, nabi Muhammad calayhi salaatu wasalaam iyo hogaamintiisii. waana ninkii qaatay afdal jaa'isa cilmi lidaara 2011 ingiriiska, British Chartered Institute of Management baa ayuu jaa'isada ku qaatay. ayaa waxa uu tilmaamayaa fikrad iska kooban oo ah qaa'idku buu leeyahay waa xoolo raac. dabeetana wuxuu daliishanayaa xadiidkii nebiga ee tilmaamayey maa min nabiyin ilaa waqad raaca alghanam. dabeetana wuxuu sharxayaa uun ninka adhiga raaca muxuu qabtaa, ninka adhiga raaca muxuu qabtaa buu sharxayaa. ninka adhiga raaca buu leeyahay wuxuu ka fekeraa the well-being of this, sida ugu fiican ee xoolihiisu ay u naaxi lahaayeen u samaysmi lahaayeen. dabeetana wuxuu ilaaliyaa buu yidhi ta jaban waa kabaa, ta gaabinaysa, ta ciddadu ku baxday, ta shinidu maxaa la yidhaahaa shilintu cuntay, taa marka qofkani wuxuu ka fekerayaa buu leeyahay xoolihiisaasi dhammaantood siday u noqon lahaayeen wax fiican. liidarkuna waa saasun buu leeyahay, waa qof bulshada uu hogaaminayo ku tala jira keeda jaban inuu kabo, oo ka shilintu cuntay inuu ka gooyo, oo ka qanjaafilu ku baxeen inuu ka jaro, oo well-being inuu ka wada dhigo, sida ugu qurux badan leh inuu u wada taagaa buu tilmaamayaa buu leeyahay. kadib wuxuu tilmaamayaa uu leeyahay qaa'idka namuudajiga ah ama qaa'idka fiicani ee sidii nebi maxamed oo kale ahi buu leeyahay calayhi salaatu wasalaam waa 2 shay ama 3 shay qof kale buu yidhaha. waa qof buu yidhi isagu shakhsi ahaan mutawaadica, yataxallaa bitawaadic, laakiin wayaxdaa bilixtiraam buu leeyahay. tawaaduciisu maaha tawaaduc dadku ay yasaan, haddana markay dadka joogto agtoodana waa qof ay ixtiraamayaan. isaga waa mutawaadico qof isweyneynaya maaha. jaanibka kale marka la eegana waa qof la ixtiraamayo oo la weyneynayo. intaa waxa u dheer buu yidhi waa duu basiiratin wa ilhaam. wuxuu leeyahay vision iyo inspiration ama aragti iyo taxfiis inuu dadka tawjiihin karo, meesha mari karo. waxaanu u taagan yahay buu leeyahay dadka dantooda, khidmat innaas.
haddii aynu sidaa ku sifayna buu leeyahy qaa'idka fiicani محمد عليه الصلاة والسلام بقى بولي قائد كي دوني دوغو فيعني صدح صفة أيولي يدبولي وصفة الراعي بوط أبولي نينك حولها الراعي أرق الراعي صفة دي سيولي يبولي وحكولو لي يبولي صفة الشجاع المتواضع قف جيسنا وديرن متواضعنا والديوانية دي سيولي أرقى عربيات واستعماله عربت وكون nin waliba wuxuu leeyahay meel naadiyo lagu shiro boqorada iyo madaxdooda iyo waxa kani meel bay samaystaan kaynta ku taalo khaymo weyn oo la fariisto dadka ay ugu yimaadaan meesha lagu shiro diiwaaniyadiisi buu leeyahay dadkoo dhan maftuux bay u tahay ma aha cid dadka inuu qori u soo galaysa maftuux bay dadkoo dhan u tahay maftuuxnimada ay tahay dadoo dhan u furantay waxay faa'iideynaysaa buu leeyahay inuu noqdo qudwa inuu noqdo qof lagu dayan karo oo ku dayashadu inay dadkoo dhan arkaan waxaad samaynaysa bay ka timaadaa buu leeyahay qodobkiisa saddexaad uu ku tilmaamayaana waa ar-ru'ya wat-tawjiih inuu leeyahay aragti iyo jihayn dad baa aragti leh inta badan dadka naabiqiinta ahi ama indheergaradkeenu waa dad aragti leh laakiin ma wada aha qaa'idiin qof baad arkaysaa dakiya very intelligent intelligence-kiisu 100% uu yahay laakiin laba qof aan wadi karin sababaha waxa ka mid ah bay yiraahdaan haddii nin dheeriya bay yiraahdaan nin gaaban israacaan oo ninka dheeri wax fog arko ninkan gaabanina aanu arkaynin wuxuu ninkani arkayo mal xal bay yiraahdaan ma xala waryaamiyaad waxaan arkay buu leeyahay ma arka buu kari taagay ma arko ayuu taagay waxay yiraahdaan waa laba midu inuu qof wax qancin kara noqdo oo qofkan ka dhaadhicin kara mashaakilka uu arkayo ama qof iithaar loo wax la qaybsi laho aqbala dadku inay wada socdaan oo waxa uu arkay hadduu kari arki kari waayay ku qanca bal wixii kale laga maarmi waayo in la qabto labada solution ba waa laba lagu wada socon kara bay dhahay laakiin hadduu cadhoodo uu yiraahdo waxba arki maayo ku wareegsiga tagayna waxa laaliyo waxay faa'iido leeyihiin ma jirto waxa la mid ah weeyaan qofka more intelligent ka vision kale wax badan arkaya laakiin aan kooxdiisa ama qancin karin ama wadi karin qofkii wax uu arkaya aragtidiisana way fiican tahay waxaanu sheegayaa waa fiican yihiin laakiin ma laha wixii uu wadi karayay si awgeed مثلا ninkan la yiraahdo Posner waa nimay ku tilmaamaan 20 nin human resource thinkers ka dunida ugu waaweyn ka mid ah waa nin professor waa professor of leadership waana coacheska ugu waaweyn ee dunida train gareeya Barry Posner baa la yiraahdaa iyo nin la yiraahdo Jimmy Cousins baa jira labada nin waxay leeyihiin buug caana buugooda dunida aad buu caan ugu yahay waxay yiraahdaan waa buugta award winningska waxyaaba helay jawaa'ista tirada badan la siiyay waxay yiraahdaan wuxuu ku jira buugta yiraahdaan bestseller books buugta ugu fiican ee la iibsado markay leadership joogto buugooda tani waa just a research waa buug marka baabkan la eego waa buugta u ah bibliska يعني واحد هنا لما مليون كوبي لقى ضحبه يعني سيده دابا marka bookska laga waramayo iyo qiimeeytooda wuxuu haduu yahay wax dadka oo dhamay akhriyaan bil balaayin novelada iyo sheekooyinka iyo riwaayadaha iyo waxa markuu yahay 2 milyan wax nafle maaha marka saa loo eego laakiin waxay yiraahdaan haduu scientific books yahay مثلا book physics haduu yahay waxa la isweydiinaya dunida imso qof baa physics ka barata waa dad yar marka sidaa loo eego ama book programming ka waramaya haduu yahay dunida dadka programming ku mashquulsan intay leegiin haduu buugaas noqdo buug qof kasto programming ka shaqeeya uu sito waxay tilmaamaysaa inuu yahay buugta ugu qurux badan leh laakiin programmerska dunida oo dhan hadaynu isu geeyno waxa laga yaabaa inay 2 milyan oo qof noqonayaan ama 3 milyan 4 milyan oo qof programmerska dunida oo dhan waa dad yar marka haduu 2 milyan oo copy buuga laga daabacay macnaheedu waxa weeye waa buug aad u cajab qaba buugani waa leadership that means dadka akhriya waa dad tirsan bulsho weyntu shaqo kuma leh dad kooban baa akhrisanaya
buuggaa dadka kooban ee akhrisanaya hadduu 2 milyan copies laga daabacay macnaheedu waxa weeyaan waa buug aan kuwa ugu horeeya bini aadam u qaato waxay ku tilmaamaan inuu yahay 10ka buug ee leadership ugu sarreeya ama culumtan business books oo dhan 100ka buug ugu mudan buu ka mid yahay 1982 bay qoreen ilaa iyo first editionkiisii 50th editionkiisii 2002 alifkii meelahaasuu mareeyey waxay ku tilmaamaan buuggani waa field research waa baaritaan dadka lagu sameeyey waxay isticmaaleen waxaana yidhaahdaan leadership practices inventory LPI gani waxay yidhaahdaan waa toolka technique ugu fiican ee wax lagu baadho marka baabkan la joogo technique-gani wuxuu ka kooban yahay ilaa 360 assessment 360 assessment ama 360 assessment tools ayuu ka kooban yahay waxay wax weydiiyeen 3 milyan oo qof waxa ay written form jawaab qoraal ka heleen bay yiraahdaan 75,000 oo qof waxay raadinayeen oo baaritaanka ku wadeen hoggaanka dadka guusha u horseedi kara waa kuma baaritaanku intaas ku saabsan yahay hoggaamiye ama leadershipka guul horseedi kara waa kuma waxyaabaha ugu mudan ee dadku ay doorteen waxa kamid ah waxay yiraahdeen waa hoggaanka leh waa traitski baa laga waramaya yani simaadkii qofka shakhsiga ahaa waxay yiraahdeen waa qofka leh al-amana honesty iyo bay yiraahdaan competency al-kafaa waa qof amaanana leh kafaa hawlkarnimana leh forward looking xagga horena arki kara way wadeen researchkooda waxay ku soo koobeen markii ugu dambeysay statisticskii dadka ay ka qaadeen oo dhami waxay ku soo urureen bay yiraahdeen 5 qodob qodobka koowaad waa daacadnimada waa honesty waa daacadnimo qofku inuu waxa kan uu daacad yahay wax qof wax khiyaameynaya inaanu ahayn khiyaamadu material oo qura maaha waa inaad dadkan aad maamulayso daacad u tahay honesty inaad tahay ka labaad waxay yiraahdeen waa inuu qof aragti leeyahay qof uun cagihiisa arkaya uun inaanu noqonin ee qof indheer arkaya inuu yahay ka saddexaad waxay yiraahdeen waa qof inspiring ama taxfiis waa qof tashjiicin kara waa qof dadka shaqada inay qabtaan ku tashjiicin kara ka afraad waxay yiraahdeen waa competence oo al-kafaa qof karti leh hawl kara waa inuu noqdaa ka shanaad bay ka dhigeen markaa الذكاء والنبوغ intelligence يعني intelligence waxaad aragtaa in wax badan markay leadership nimo joogto laga horeeyo oo ay tilmaamayaan baritaanadooda cajabta leh waxa kamid ah 1500 oo CEO oo dunida shirkadka ugu weyn hogaamiya ay su'aal soo bandhigeen goorma ama leadersku sidee bay u gayn karaan يعني how leaders gain and lose it وسؤاش أي بوجا كقريين بوجو مجا على هذا القرين وحيلاقي leader كوفي عن وكيف هذا وسيو يدي عالم كورنا وحكوده دو وحيكوش يجان أما leader كسيدبو هلي كرابال ويري وحيكوت المامان credibility المصداقية waxay dhaadeen laba shay haduu yeesho mustaqiyada ama credibility go laba shay bay ku xidhantay bay dhaadaan waa truth telling and trustworthy labadan eray waa labadii eray ee nabiga lagu sifeyn jiray as-sadiq al-amin waa qof run sheegaya waan been lagu aqoonin وانا قف بيلين محي امين وطاعد له طاعده حتى ترتبي الى هجاميه credibility وحكو هلي كرو مصداقيه وحكو هلي كرو وينو لبدن يشا وسيو يدي عالم كودن ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام وحو تلماميا
saddex aakhiro ilaahay lama hadla baa la yidhi mana eego cadaab kulula way leeyihin saddexdaa la tilmaamay waxaa ka mid ah sheekh zaniya baa la yidhi nin weyn oo zinaystay dee nin dhallinyaro ah waa laga eegayay zinaya waxaase nin waa yeel zinaystay waxaa kaloo la tilmaamay melig kadaab ah meligga waxaa loo jeedaa yani maamul nin dad u haya oo beenaalo ah halkay kuwan yidhaahdeen asaadiq ayaa run ah nebiguna wuxuu leeyahy aakhire kuwan ilaahayba la hadlin buu ku biiraya hadduu noqdo maxay beenaale iyo caa'il mustakbir haddaba kalsoonidu ama credibilitygu in qaa'idku uu noqdo qof la jeceliyo lagu kalsoon yahay waxay ku dhismaan un bay leeyihin labadan shay hadduu qaa'idku saadiq amiina yahay waa qof credibility buu noqonaya qur-aankana inta badan haddaad aragto dadkii ilaahay wuxu dirtay malaa'ig iyo rusulba ammaana lagu sifeeyey qur-aanka markaad eegto nebiyadoo dhamme nebi waliba muxuu leeyahy innii lakum rasuulun amiin buu nebi wala sheegayaa xataa malakul jibriil ilaahay muxuu yidhi nazala bihi ruuxul amiin baa lagu tilmaamay mutaacin thama amiin ammaanadu asal bay ka tahy qofku inuu qof ammaano leeyahay waa asalka innaga wadannada tan waxyaabaha aadka ugu liita waxaa ka mid ah waa qadiyadda koowaad ee aan la qiimeynin markaynu leadership ka warramayno siyaasadda waxaa loo yaqaana qofba qof ka been badan yahay ama ka tuuganimo badan yahay macnaheedu waxa weya mujtamaca tuuga ayo markaynu kan ceebeynayno ma aha inaynu tuuganimada necabnay ee waa qofka qaatay baynu necabnay hadduu ku reerkiinay qaato ood iska aamusi lahay mashaakilku waxa weeyaan yani matalan nin baa maamul haya tuug buu noqday waxbuu xaday 2 guri 3 guri 4 guri buu dhistay markuu meesha gelayayna mid ma lahayn 4 guri dhistay inaga waxaynu odhanaynaa waa ammaanaynaa waxaa la leeyahy wallahi ninkaasi dee 2 sannadood buu shaqeeyo reerkii guri waa uga dhisay carruurtiina biilka meel ka soo qaataan buu uga sameeyey waa ammaan mujtamacana wuxuu ka yahay qof ammaanan oo qof wax ka qabsaday kii intaa la mida shaqeeyey aan waxba ka soo qaadaninna war waa bahal nacso inta wasaarad loo dhiibay dhan ayaa weli carruurtiisii loo dawarayaa bay leeyihin dadminis waxa weya tuuganimadaynu isku waafaqsannay waxaynu isku haysanaa waxa weeyaan waa qofka cunaya farqa inoo dhexeeya waxa weeyaan waa kumuu noqonaya ninka waxadaya laakiin waxadidda waa wada ogolleh in wax la xado dadminis waa ummad aan lahayn markaa sifadii koowaad ama wixii koowaad aanu lahayn bay wax ku dhismayaan ama hogaaminay ku soconaysaa aan jirin hogaaminta waxa ugu horeeya bay tilmaamayaan 1500 CEO hogaanku credibility wuxuu ku helayaa bay leeyihin waa inuu aaminayay ammaana inuu leeyahay shayga labaadna waxay leeyihiin waa inuu qof run sheegaya yahay innaga siyaasadda waxaynu naqaanaaba inay tahay maxay kadib ama nifaaq waxaanay dowladdu inta badan sheegto waa waxaanay qaban doonin way ogyihiin inaanay qabanaynin ninka madaxda himeel buu imanaya waa khudbadaynaya waxbuu sheegaya waxaanu sheegaya isagaana og inaanu samaynaynin idan waa been sideediyo dadka loo sheegayo waa beentu saacad dadka waa khawaysiin kartaa laakiin after 2 days or 3 days dee xaqiiqadan la gaadhaya waxaan jirin bay soo baxayaan saa awgeed nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada markuu la hadlaya wuxuu lahaa alaa ta'manuuni waana amiinu man fi samaa war miydani aaminin buu leeyahy anigoo ah amiinu man fi samaa allaha cirka abuuray anoo ah cidduu ku aaminay waxyiga waxaanu anas ibnu malik lahaa khutabkii nebiga weer baa jirtay buu hi inta badan ku jiri jirtay nabigu maa khatabanaa nabiyullahi buu leeyahy nooma khudbadaynin ilaa iyo wuxuu yidhi laa iimaana liman laa amaanata lah walaa diina liman laa cahda lah waa labadii shay aynu ka hadlaynay iimaan ma leh qofka aan ammaano lahayn iyo diin ma leh qofka aan ballan lahayn ballanku waa waxaad ballan qaaday weerad ka run sheegtaa ama waxsiin ha noqoto ama wakti aad qof la ballaantay ha noqoto ama waxay doonto ha noqoto ballankaagu waa inuu run noqdaa waa inuu sidqa ku salaysnaadaa
سادرادد بو حلي خطبت كستو نبي جيديو waxa ku jiri jiray buu leeyahay Anas ibn Malik saxaabigaasi inuu nabigu yiraahdo iimaan ma leh ninkaan amaano lahayn diin ma leh ninkaan ballan lahayn ka waran iyadoo nabi Maxamed khudbad kasta u jeediyo uu inta ku daro waxay tilmaamaysaa bulshada dhexdeeda waxa kan qiimo sidoo ugu leeyahay idan waxaan leenahay markaan soo koobno wixii diintu inoo sheegtay bay qoladan wax baadhe researchiska ahina ku soo gabagabeeyay research بني آدم field research كاها أي سميان لبدا بروفيسور يدوني درجة لغة دمبياي بس سيلر بوكس كاي كوسو بندقيان وريسيرش صدر سندوت سعودي وحي كوسو صارين وحويان ووحي إلهي رسول كيسوي نفرين وهداد مستاقية credibility هداد ربطه قف هجاني مدي سدتكو أي قريان إن نقطه وحوبة هي إن لبدا لا تصفه الصدق والأمانة ممارسات بايمي مركا حيهين حيابا لوغا باهي شقوين كلا ربا إنو قبطو قفكو إسلا نمان كاسي شان دقان باي شاقن إليين شان تا دقان هدو يشو قفك قائد كاهي وقائد كي نبطاها شان تان دقان سيدايو إيمانيان وحيو يالانو حيدادان the 10 commitments tobanka shay la rabo inuu qofku sameeyo oo shantan dhalaya shay walo ay tilmaameenba laba shay bay leeyihiin hadaad samayso waa wixii la timi shayga koowaad ay yiraahdaan qofka qaa'idka ahi waxa laga rabaa inuu noqdaa iyagu waxay yiraahdaan model the way bay yiraahdaan ama kunna mudajan tusaale noqo macnaheedu waa maxay waxay yiraahdaan iyagu warkooda waxay yiraahdaan his deeds are louder than his speech bay yiraahdeen afcaashiisa ayaa ka cod dheer warkiisa waa uun ilaahay muxuu yidhi ata'muruuna annaasa bilbirri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaab maxaa ugu dambeeya afalaa tacqiluun waa maandaro inaad dadka intaad u khudbadayso ama wax farto ama shaqada intaad dadka isu yeedho tiraa sahla adna aanaad yeelaynin waa maandaro marka waxay leeyihin haddaad rabto leader midho dhala inaad noqoto waa inaad noqotaa bay leeyihin namuudaj waxay kaloo yidhaahdaan if you don't believe the messenger you don't believe the message bay yidhaahdaan haddaanad rasuulka rumaysnayn risaalada ma rumaysnid bay leeyihin qofka wax sheegaya haddaanad ku qanacsanayn waxa uu sheegi doonana ku qanci maysid qofku hadduu agtaada beenaale ka yihi ama iimaan laawo ka yihi ama qof aan waxba tarin ka yihi ama warku kuu sheegayana qiimo kuuma laha laakiin qofku hadduu agtaada qiimo ku leeyahay warka uu sheegayaana wuxuu noqonayaa maxay war aad u dhag raarayso idan message qura oo shan qof oo kala nooci sheegeen ayaan isku dhaqan noqonaynin message waa kii uun waxba iskama bedelin message-ka la odhanaya waa kii uun ee dadka loo sheegaya laakiin dadka sheegay ayaa kala nooca raadkiisu kala nooc buu noqonayaa sababtu waa maxay bay leeyihin qofkan baan ahayn namuudajkii loo baahnaa qofkan qaa'idka ee wax hogaaminaya waxaan uu sheegayo hardware-kar noqda waqtiga ilaaliya kana ilaaliya adnaba ilaalisid aduu marka yararkaagu xanuunsadaanba waad jirtaa waxaanad rabtaa shaqaalu inaanu jarin ama uu soo noqdo ama ka noqdo suurtagal maaha waa inaad adigu namuudajkii noqotaa markaad adigu tusaale noqoto bay leeyihin ayay risaaladaadu gaadhayaan saa awgeed bay leeyihin qodobkani commitmentska iyagu sheegaan laba wax weeyaan bay yidhaahdeen waa maxay waa clarify values and set the example bay yidhahdaan qiyamka shaqo ama maamul ee la qabanaya waa inay qiyam cadoo dadkoo dhan wada garanayay adiguna waa inaad tusaalihii noqotaa valueska waxa la rabo ee la qabanaya wax cad waa inuu yahay valuegu dadku la isku waafaqsanyay waa inuu ahaadaa secondna waa inaad adigu tusaalaha koowaad noqotaa markaasaad samaysay bay leeyihin kii koowaad ama shaygii koowaad nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa inamaa bucistu liutamima makaarim values inaan dhammaystiraa baa laysoo diray buu leeyahy waxay dhahdaan caqaa'idda iyo cibaadaadka iyo waxaan oo dhami nolosha adduunka marka la eego values bay dhalaan
valueskii dhaqankii uu dadku ku dhaqmayay ayaa ka dhasha. cibaadaadkani dhaqankaasay xoojiyaan, caqaa'idatani dhaqankaasay xoojiyaan. idan value baa ka yimaada qiyamkaas ayuu nebigu wuxuu leey waxaa la ii soo dirayba inaan qiyamka dhammaystiro. waxaa kaloo lagu tilmaamaa nebigu inuu ahaa wax kasta uu dadka faray kii u horreeyey. saxaabadu waxay idhahdeen wuxuu ahaa akharunaa shujaacatan wa akharunaa karaman wa akharunaa jawdan wa akharunaa wa akharunaa. wax kasta isagaa u horreeyey. waxay dhahdeen qaa'idka dhabta ahi markaasuu noqonaya qof la rumaysto oo mistaaqiye leh oo dadku ay ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu inoogu tilmaamaya مثلا ظلمي إلهي وحلي ورنا ظلمي إسكام ممنوعي إني حرمت الظلم على نفسي إذن كنا محي فلا تظالموا باليدي هيس ظلمنينا إلهي وحنا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون وحين صمين إنهم حاولوا واقع سام حاول صمين استان إذا وحين لأن شيء كوات إنه بهنا وحويان هذا ربطه cidda kaa dambaysa ee aada maamulaysa waxaad rabtay inay fuliyaan adigu marka hore tusaalihii waxaa fulin lahaa noqon. qofkii loo arkaya inuu shaqada qabanayo nabi maxamed masaajidkiisii la dhisayay xataa iyadoo saxaabada wada xoog aan xooggiisa loo baahnayn ayuu muu fadhiisanay wuxuu tijaabiyey inuu isna jaajuurka iyo dhoobada wax ka guro oo heestay qaadayaan la qaado oo uu shaqada dhiiri geliyo. idan waxay leeyihiin qofku waa inuu model ahaadaa markaasuu qaa'id yahay. hadduu aanu se model ahayn waxaana uu sheegaya aanay agtiisa ka jirin. ilaahayna qur-aanka wuxuu ina leeyahy markii ambiyada laga warramay fabihudaahu muqtadi. shayga labaad ee practice-ka u baahan bay yidhaahdaan waa wijha inuu qofku leeyahay meel uu socdo weliba bay yidhaahdeen meesha loo socdaa inay tahay ru'ya mushtaraka. رؤية مشتركة. يعني براكتس كمان كورمي دون هذه وقت وينوسينه. لكن ميدوك سونون. واحد هذا قائدك تونس كوه يستصدح بقى وحوق بدأ بيدان. ما ملبا تونس كوه يستوى صدح شيء بيدان. صدح ذا الشيء سدو استعماله. أيا أنت بدن نتيجة كدلته. صدح ذا الشيء وصدح شيء nolosheena caadi ku ah laakiin u baahan inaynu saynu u qiimeynayno qiimeyn gaara siino. shayga koowaad waxay yidhaahdaan ee uu haystaa waa liqnaac inuu dadka qancin karo. waa kala laba bay yidhahdaan qofka inaad amar siiso iyo inaad qanciso. inta badan meelaha aan fikradaba laga aqbalin baa awaamirta ka socotaa. الثكنات العسكرية عسكرت الله ما وقالين فكرة ولا فكرة هنا عسكرجو عقل واحد لا مالك سدردد ولا فكرة therefore وأوامر صبحي إنك ماشي هيستمر كويس سو تاجو ساكا شقد وعينك يا عينك وسايا سدا ساس الغمرية عند راكرت ومحين وحى وخبرنا ما شرت أما محاوحة الله سمينا ماشي واحد هذا طول كوجو ناكسن أمام الأديك سدا أما الليدر وأديكسدا وإقناع سدرادة كون قالت واحد هذا إنك ماذا حدا وحفي عنه إنه كرسملي هاي إنه عتكري هاي إنه واحد محلو فليا وحلو فليا إنه ضدك غني كارو ويدي سوينا إنه قكرت ويد ضدك قشة تصالك كوبا نبي محمد سدو حكروا أديكسني عليه الصلاة والسلام سوق مساجد كفردية ومجلس فردية مساجد وصحابة الله فردية ayaa nin yaroo dhalinyari u soo galay dabeetana wuxuu codsi buu keensaday codsi masaajidka iyo nebiga iyo saxaabada agtooda qariib ku ah. codsigu keensaday waa maxay? wuxuu waxaan rabaa inuu nin dhalinyaro baan in zinada la fasaxo buu yidhi aniga suuqgalka la ogolaado codsi abuu wataa. waa la soo badheedhay oo meesha nebigu fadhiya saxaabada jooga ayuu codsigaa keenay. dabeetana waa lagu qayliyey warkaadiya buu nebigu yidhi warkaale soo dhawow buu ku yidhi soo dhaweey. dabeetana xiwaar buu nabigu la galay wiilkan wuxuu yidhi waxaan ku weydiiyey hooyadaa ma la jeceshay waxaad rabto? waxaasuu yidhi maya ilaahay rasuulkiisiiyo hooyada in cid ka sinaysato may ma rabo.
markaasuu wuxuu weydiiyey walaashaa ma la jeceshay may dumarkii hareerihiisa ninkan ku xeeraa ee caarka waxay Soomaalidu taqaanaa ayuu weydiiyey eedda habar yar walaal inta dhashay inta midna inay xumaato meedashay markaasuu yidhi may suu yidhi haddaba dumarka kalena raggun bay hooyadoodii iyo eedadoodii iyo habaryartoodii kan yihiin markuu wiilkii la hadlay ee uu qanciyey ayuu nabigu u duceeyay haddana laabta intuu gacanta ka saaray wuxuu yidhi ilaahay uu dambigiisa dhaafacay waa u duceeyey wiilkii dhalinyarada wuu ku qancay waxay yidhaahdaan gabadh dambe isagoo eegaya lama arag uma jeedno ducada iyo warkan dambe uu nabigu u sheego dhan waxaynu uga dan leenahay wuxuu ninkani sheegaya wax sharciga oo dhan ka soo horjeeda wax ila aqbali karta maaha aayaadka zinada ka warramaya waxay soo degeen Maka intii la joogay xuduudda tacsiirka la marinaya ama ciqaabta la marinaya ama xasaab markii dambe soo degay laakiin aayaadka nahyinaya fi suurat al-Isra wala taqrabu zina iyo aayaad ka warramaya waxay soo degeen maxay Maka zinadu waa mamnuuc shariicada islaamiga wax la wada garanayay haddana lama odhanin wariya zinadu waa mamnuuc waxa la tijaabiyeen maxay la qancin karo waxay dhahaan usluubka ugu fiican waa qancin مثلا waxay yidhaahdaan dowladaha ama madaxdu ama shirkadka ragga haysta marka ay rabaan inay qanciyaan ama dadkoodii hantiilayaasha shareholderskii waxa kan ama dowladda nimanka madaxda ah marka ay rabaan inay qanciyaan bulsho weynta mucaarad baa jiro dee dadka wax ku afuufay dhib kale jirto la yiraahdo atumuux albashari hanka binaadamka lama buuxin karo wax kasta haddaad qabato dadku wuxuu buu dareemayaa oo inta dhiman buu arkaa muslina koobka inta dhiman baa xoog u muuqata waxaad wanaajiso dhan inta badan dadku ma arkaan waxay arkaan maxay waxyaabaad qaladay waxay yiraahdaan qofka maamulka ah ama madaxda ah ama wasiirkii ama madaxweynihii difaaca ugu fiican uu sameeyaa waa maxay weeyaan dawladii bay dhahan waxa ugu fiican ay isku difaacda waa laba shay labada shay haday sax yihiin bay dhahan way isdifaaci kartaa hadii kalena waa adagtay inay istifaacdo waayo marnaba binaadamka tumuuxiisa ma buuxin kartid waxa ugu weyn ee la isku difaaca bay dhahdaan waa sharciyya iyo wal ihsaa'iyaat bay dhahdaan waa qofku inuu meesha tan aanu boobinayno xaq u lahayo sharci ku yimi yani booska madaxweynimo booska wasaarada inuu sifo sharci u soo maray ee meel uu dadka ka boobay ama ku xoogay inaan ahayn ka labaadna bay yiraahdaan waa ihsaa'iyaat wax qabadkiisa tira kooban inuu saaba day dawladda ka waranto sanadkan 2,000 kilomitir oo wada baanu dhisnay 100,000 iskuul baanu hagaajinay intaasaan hagaajinay kama wax qabadkii baa muuqanaya adduunka shirkadda haysta tilmaamo inta branch cusub la furay inta waxa soo kordhay inta lacag soo kordhay koolsku siday u tiro bateen waxana say u tiro bateen percent ku marayo ihsaa'iyaadka markuu soo bandhigo waxa muuqanaya qofkan wax qabadkiisii waxa la mid ah qof kasta oo shaqo haya ninka idinku hooseeya linemanka ama meesha jooga hadduu tilmaamo sanadka kan 2,000 oo leen oo go'ay waan xidhay 3,000 oo leen oo cusub waan geliyay 4,000 oo leen oo cilad lahaa waan ka saaray intaasoo waxaad oranaysaa qofkan wax buu qabtay yani madaxaaga wuxuu keenayaa wixii uu qabto laakiin hadduu subax walba sii kalo soo kalo aanu waxba ku sheegin oo soo qabto hadhow departmentkaasi wuxuu madaxda ka sareeya ama cid ka sareeya oo ku qanciya ma jiro marka waxay yiraahdaan iqnaac hadaad rabto dawladeed shirkadeed waxa kan waxa ugu weyni waa qofku sifo sharciya inuu waxaan u qabtay oo booskan si sharciya u joogay iyo tira koob bay yiraahdaan waxa lagu sameeyo idan madaxi waxay adeegsato oo dadku qancisa bay yiraahdaan ama ay hoggaanku wuxuu wax ku maamulo saddexda shay ugu qiimaha badan bay yiraahdaan waa qancin abaalmarin iyo ciqaab inaga dhaqanka Soomaaliga ka u dambeeya u horeeya qof kasta oo qalad jabiyay waa in la ciqaabaa wax kasta oo qof galo marka inaga xeerka ciqaabta madaxeena uu ku weyn dhaqan ahaan ilaa ay malcaamada ka soo bilow marka ka soo bilowdo
yararkaasi qur-aanka waxay u naceen shil la dhacay inaga xeerka ciqaabta ah maxay waxa koowaad la sameeyo laakiin waxay yiraahdaan maamulaha rasmiga ah saddexdan shay ba ah bay yiraahdaan waa toolska ugu weyn qofka maamul haya oo adeegsada bay yiraahdaan waxa ugu qurux badan bay yiraahdaan inuu qofku dadka qancin karo waad wadan kartaa bay leeyihiin qofka hadaad qanciso waxa ku xiga bay yiraahdaan qofku inaad maxay abaal marin karto abaal marku hanti maaha inagu inta badan abaal marka waxaan u naqaanaa hanti abaal marka waxa kamid ah qofka inaad ku ixtiraamto shaqada waxa kamid ah inaad dhiirigeliso dhiirigelintu waa weer fiican oo qura inaad ku tiraahdo qofkan inuu wixii qabtay inaad u mahad naqdo markuu shaqada soo qabto thank you inaad ku tiraahdo yani waa tashjiic waa abaal marin ilmahaga yari inagu waxaan u naqaanaa maxay dhahaan la shukra ala alwaajib waa qaldantay واجبكم بابا لقى شكر نقاح هذا هذا لا شكر على الواجب قفك ما دي رجلين ما قفك ما وحي وقبطي وواجب كيسي وكصباحي لكن هذا انا وحو كاسوغي ان ريكوجنيشن لا تيمادو ان قرتو هذا بو حي دهدان قفك وينو انسبيريشن لي وينو الهامين كرا ددك وينو ريتو سكرا اي كو سودان يا ميل اي وجيدان waxay inspiration kaasi wuxuu ku yimaadaa bay dhahay laba shay waa envisioning the future bay dhahdaan meesha loo socdiyo muuqaalka inuu qofka tusi karo iyo bay dhahay enlisting others marka inuu soo koobno waa masalada aan idin lahaa enlisting the others waxa weeyaan qofkii naabigada waxay meel fog buu arkayaa dee dadkana inaad soo kaxayn karto oo meesha ay kula arki karaan ama tusi kartid ee kaliya aanad ordin كصدحات waxay ku tilmaamaan in looga baahayo shaqada inuu qabtaa waa challenge the process bay yiraahdaan shaqada processka ay marayso in challenge garayso oo waa maxay najaax iyo guushu bay yiraahdaan guul waa laba shay oo la isku daray bay yiraahdaan ba guul sameeya labada shay oo la isku daray waa maxay waa al fursa wal jaahiziya bay yiraahdaan inaad fursa jirto hadaan meelaan opportunity ka jirin dee guul ka gaadhi maysid كلابادنا وين هذا جو مركب فرصة تمادون قف الديارين هذا هيد هذا مركب فرصة تمادون كبش اللي صوت هذا وحسين هو بهنا هنا قول يسن ميسيد ذرف روح هذا هدي أضربته بروسسكا شقاد هذا سيدا الصعطين يقوم مناطه وين النقطة قف أركي كره فرص كياله مثل التليكوميونيكيشن ما تشتغل نسا وين هذاك كرتا فرص كودك يا لمحيي كو موغنكران كو كلابادنا وين الديار تاي وفرصه ساد uga faa'iideysan lahaydna diyaar u tahay markaas aad gaari kartaa bay dhahdaan guusha la sheego marka processka wayna challenge garaysaa bay dhahdaan salaah waxay ku bixiyaan nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam wuxuu tijaabiyay cid qaadata inuu helo tolkii way diideen ciidanna ma haysto dawladna ma leh dhaqaalana ma haysto wuxuu tijaabiyay cid uu magangeliye ka heli karo oo xorriyada siin karta inuu diinta dadka gaarsiiyo inuu helo dabeetana qabaa'ilkii carbeed ayuu xajka u tagaa kuwan u sheeg wala soo diidaa waayo dee mararka qaarkood challengesku siday ugu adkaayeen dee adeerkii ruma baa daba socday كور هذا أديرك على الوضع بديه أديرك أيوة أبغى هلا ده شو مش استكتب إذا كير أنا وأدير وبين وحشة جاي حكم تشيلان ضد كإنتاد وما لا نستعبها وحكاية جيسن له يعني أديرك أبي له بعد ده بتهاجن ولا يركن وصابي دينته كبحياة وحبك كده جيسنينا قبائل كبر قبيل كانوا تقوى رفضيان كان كانوا تقوى سعودي دان كان كانوا تقوى سعودي دان ما يري ورنا قدام مشتن وحبل قبل كريم مايا he challenged the process isku day inuu processka challenge gareeyo culimada taariikh qaar kamid waxay sheegaan 15 reer baa diiday bay yiraahdaan laakiin at last muxuu helay qolo aqbashay ugu dambeyntii ansaar baa aqbashay dabeetana waxa suurta gashay inuu ballan la galo ay ballanka oofiyaan oo dabeetana laba goor ay u yimaadaan oo labadii goorba ballan la galo la aqbalo oo cid u diro oo meesha la sii hagaajiyo oo dacwo laga sii sameeyo kadibna uu hijroodo kadibna naf iyo nafiisba idan processka uu challenge gareeyay
processku markuu bilaabayba najaax ma gaadhin guushu markiiba instantaneous ma ahayn laakiin markay 15 qabiil diiday ayuu noqday kii 16aad inuu maxay suurto gasho inuu gaari karo idan waxay yiraahdaan masaladan ay sheegayaan waxay iyagu yiraahdaan experiment and take the risk bay yiraahdaan waxa experiment gara riskigana aqbal maalin walba lama guuleysto fashalkaagu waxaad wax ka barataa noqdo yani fashalku bay yiraahdaan inaad wax ku fashashaa qofna wuxuu u arkaa inuu khasaaray qofna wuxuu u arkaa bay yiraahdaan inuu maxay aqoon kororsaday waxay yiraahdaan markaad fashisho macnaheedu waxa weeyaan waxaad soo ogaatay waddo aan waddadii guusha ahayn dan waad cilmaad heshay waddada haddii la maro really waxaad soo xaqiijisay inaan ahayn waddadii guusha mar damaanad maraynin waxaad tijaabinaysaa markaa mid kale inaad marto qodobkooda afraad waxay ku tilmaamaan enable others to act madaxda bar baa jecel inuu magaca isagu qaato wax walbana in isaga loo nisbeeyo inta badan waa dictatorship isku say yeelaan wasiirku markuu khudbadayna wuxuu odhanayaa madaxweynihii baa salaanta noo soo faray madaxweynaha anagoo ka tarjumayna waxaanu idhi aragtidii madaxweyne hadda waxba uga soo sheegin waayo ninkan bay ogyihiin inaanu wax kala aqbalaynin in isaga la sheega mooyaane waxay dhahdaan leadershipka dhabka ahi kaamaha bay dhahay leadershipka dhabta ahi waxay dhahdaan oo qofka dadka traingareeya ee aqbala inay soo baxaan makin ilaakhiriin bay dhahaan wafsax lahum almajaal dadka tababar oo ugu talagal waa mas'alo bay yidhahdeen ciddaan liidarka ahayn ku adag dadka badh waxay ka fekeraan waar almushaqadaada kaa qaada haddaad soo kor soo qaado iska celi dee maamule intuu maamulayay la loolamaya haddaad intii adiga lagu yidhi tababaroo hore wadaad la loolanto dee waxba socon maayaan laakiin haddii aad iyaga soo tababarto soo adiga shaqadu kaa fududaanaysa hore aad guul u gaadhaysaan waxay dhahaan liidarka dhabta waxaa lagu yaqaanaa bay dhahaan markuu meesha ka tago wuxuu kaga tagaa bay leeyihin dad liidari soo wadi kara ninkaan liidarka ahayna waxaa lagu gartaa bay dhahaan markuu meesha ka tago arday isku wareegtuun buu ka tagaa cidaan garanaynin meel loo socdo مثلا waxay dhahaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha liidarnimadiisa dunidu ay maanta u ictiraafsantay waxa ka mid ah bay yidhaahdeen dad aan aqoon lahayn meel aan philosophy oolan dhaqan oo luqa oolin yani wax la bartay jirin dad reer miyi rasmiya ah ama shubhu reer miyiya ku dhadhow aqoon halkaa ka jooga ayuu train gareeyay bay yidhaahdaan maalintuu ka baxay isagu iyo dhintay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka tegay bay yidhaahdeen isagoo qaada reer miyiga ay qaadayiin dabeetana dunida kuwuu ka tegaa dawkhiyey iyaga qaada ahaa hadduu ka tegi lahaa bay leeyihiin nooc ah tabac muriidiin hadduu ka tegi lahaa isna uu sheekhu meesha ka ahaan lahaa oo uun isaga wuxuu sameeyey eegi lahaa maalintuu ka baxo dariiqadu waa baabi'i lahayd waayo awal bay muriidiin ahaayeen awal baanay ahayn idan qaa'idka rasmigii bay yidhaahdaan waa qof dadkan uu wade uu hogaaminayo u traingareeya inay noqon karaan qaadatul barito dadkii qaadada noqon lahaa marka waxay yidhaahdaan dadka badh baan jeclayn munaafasada ama jecel inuu isagu ahaada almathal alwaxiid waa dhib bay yidhaahdaan saa daraaddeed iyaga waxay yidhahdaan foster collaboration and strength others yani nami tacaawin wax wada qabadka xooji dadka kalena xoojiyo u bannee inay shaqada qaban karaan waxay ugu dambaysiyaan iyagu ay yidhaahdaan markaa qadiyatu tashjiic oo encourage the heart oo ay ku soo koobaan dadku waxay qabtaan marka hore ictiraaf oo celebration u sameeyo faafi oo valueska iyo victorieska ay keeneen qir qofku markaa wuu sii wadayaa shaqada dee qofku markuu soo shaqeeya tiraahda waajibkaagii umaad gudatay ama wixii lagaa filayay baad qabatay that's not enough waad niyad jebisay bini aadamka waxay yidhaahdaan eraygu meel fiican buu kaga dhacaa marar badan baan maadadu gaadhin bay yidhaahdaan meeshuu eraygu gaadho qofka ixtiraam iyo qadarin kuu muujiya wuu kaala qiimo badayay qof wax ku siiyey hantidu wax weyn maaha qofka
identitygiisa iyo bini aadamnimadiisa ka mudan dhaqaalihiisa iyo hantidiisa. yes dhaqaalu waa ku jiraa waxsiintu oo ilaa xad uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wax isu hadiyaya waa isjeclaanaysaane jacayl iyo maadaa la isku xidhay. yani waa basharka waa ku abuurantay dee qur-aankaba haddaad akhrido xoolaha iyo jacaylkoodu waa isku naban yihin bini aadamka wainahu lixubu lkhayri lashadiid watuxibuuna almaala xuban jama. xataa kuwa bixinayay maxaa lagu yidhi qur-aanka waxay bixinayaan baa la yidhi maxay calaa xubihi iyagoo jecel bay siinayaan miskiina wayatiimo ay siinayaan. marka ka bixiyena isagoo jecel buu bixinayaa ka kalena isagoo jecel buu guranayaa weeyaan. idan waa ka mid laakiin waxaynu leenahay iyadoo qura maaha qofka in la ixtiraamo oo waxqabadkiisa la faafiyo oo la abaal mariyo oo la tashjiiciyo ayaa ah bay leeyihiin wax weyn ah. saa daraaddeed liidarku baynu leenahay markaynu warka soo koobno waa inuu noqdaa qof dadku wada jecel yihin. nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay war xulkiina ama mudankiina ma idiin sheegaa buu nabigu yidhi alaa ukhbirukum bikhiyaari amwaraa'ikum wa shiraarihim. madaxdiina iyo maamulkiina kuwa ugu fiican ee xulka ah iyo kuwa ugu sharka badan lama idiin sheegaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. haa baa la yidhi. wuxuu yihi kuwa ugu fiicani waa kuwa idinkuna jeceshiin iyaguna idin jecel. kuwa ugu sharka badan buu nabigu yidhi waa kuwa iyaguna idin necab idina aad soo habaartaanay necabtiin. hadduu ninka madaxdii noqdo nin markuu maqan yahay laxanto oo meesha oo dham ay ku faraxda maqnaanshihiisa kolley habaar buu ahaaye haynaga maqnaado hadduu noqdo waa dhib. cagsiga hadduu ninka madaxda ahay markuu maqan yahay ama nin qof la tabo uu noqdo oo la idhaha wallaahi waa ninkii waa inaga maqan yahan shaqada maanta iska gejino oo loo arkayo qof ay ixtiraam u hayeen qof aanay ceeb la rabin maqnaanshiyihiisa ay u arkayaan inay iyagu buuxin karayaanna waa liidarkii loo baahnaa. idan waxyaabaha aan sheegnay labadaa nin wixii ay sheegeen aan ka soo koobnay ama ha noqoto traitiska oo simaadka qofka laga raba ah ama ha noqoto akhlaaqiyaadka ama dhaqamada ama practiceska ama afcaasha la rabo inuu qofka liidarkii qabto ha noqotee wuxuuba waa intii ilaahay kitaabkiisa ku sheegay ama sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ku sheegay. waayo waxay idhaahdaan qaa'idka dunida ugu xoog badanee soo maray xataa gaal waxay leeyihin waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. ma nebinimada ay qiimeynayaan? maya, iyagu waxay qiimeynayaan outcome-ka. waxay leeyihiin wuxuu haystay wixii ugu yaraa resourcekii ugu yaraa buu haystay bay leeyihin. waxaanu dhaliyey bay leeyihin wixii ugu weynaaye bini aadam uu dhalin karo. qofku haddii de inaga project balaan markaad lagu idhaahdo waxaa soo qabo project balaan baad samaysataa aad ka waranto kow resourceskaad u baahantay waxaasaan u baahno kaasaan u baahno waqti intaa lago dad intaa lago shaqo intaa lago xoog intaa lago intaa marka lagu siiyo ayaa haddana wagash tahay talo muu fuli doonaa projectkii mise ma fuli doono ma sax noqon doona mala. nebi maxamed intaa midna ma haysan meel cidla ah oo quraysh joogto oo diinlaawayaal joogaan oo mabda aanay rumaysnayn la rabo inuu ka dhaadhiciyo ku hogaamiyo waanu dhaqaalo haysanoo ciidan u haysan buu ayuu ka bilaabay. idan waxay yidhaahdaan resource gacantiisa kuma jiraan waxyigaas iyo tusaalaha alla hayn iyo alla subxaana watacaala gargaarkiisa. waxaanu dhaliyey bay yidhaahdaan isbedelada dunida ka dhacay isbedeladii ugu weynaa. marka iyagu gaaladu waxay qiimeynayeen qofkani wixii uu haystay practicalka iyagu ay arkayeen iyo natiijadii ka dhalatay markay isu qiimeeyeen waxay tilmaamayeen inuu yahay good leader. haddaba liidernimada oo dhamme markaan soo koobno waa inuu qofku noqdo asaadiq alamiin. taas buu ku helayaa kalsoonida dadkiisa ama credibility-ga uu ku helaya. practice-kan ay sheegayaan haddii uu sameeyana wuxuu noqonayaa inay bulshadu hore u socoto. laakiin waxaan akhriyay waa theory, waa nadariyaadkii. waxaa ka quman in tadriib lagu helo kuwaasi. waxaynu sheegnay system loo tababaro basharku buu leeyahay oo loo gaadhsiin karo qaabkaasi in la helo iyadoo tababara
ayaa waxay ka muhiimsantahay in la helo iyadoo lecture hadda waxa aynu dhignay wuxuu la mid noqonayaa theory-gii darawalnimada marka la dhigayo la sharxi jiray waa laga yaabaa haddii la idin imtixaamo inaa intii qorqortaan oo guulaysataan laakiin practically ma fulin doontaan waxay u baahan tahay in gaadhiga la idin baray sida loo wado iyo inaan la idin barin wasala allahu calaa maxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin